فرضك أوغا فقرض سكذا سيا سقذ رحل الكيتوسا ربي أسجود gabadhan walaasheena waxa ay leedahay waxa aan isjeclayn wiilkaas oo 10 sano ka hor aan anigu ka tagay anagoo isjecel khilaaf dhexdeeda ka yimid dartiisa kadibna aan nin guursaday ninkii markii aan guursadayna aan ninkii soo kala tagnay muddo 10 sano markii aan la noolaa 2 caruurana aan u dhalay ninkii aan waqtigaas jeclaa markii aan dhalinyarada ahayna oo noloshadii ugu horeeyay qof aan la sheekaysto ama jacayl aan u qaado waxay leedahay maanta waa nin reer leh caruur leh oo dhaqda waxaan doonayaa maanta inaan guursado walaalaha qaaliga ah oo bal gabadhaas waxay rabtaa talo ma fahanteen marka bal la soo taliya iyo qisadeena si ku bilaabmayso السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبان ذي السلام أصحابت كحران نجح channel سودو هذا ولا لها قالقا هو هبين ونكسنو وعن بارد الله هاي إذا لهانتين بميلك استدوني تعالي ذي كتشوكتان كل أنيقا هبين بيت هبين ونكسن مرلوات انتي مانو تانماني ونكسن سودو كلان وحرد الله هاي رمضان كريم رمضان مبارك كل عام وانتم بخير إلهي سبحانه وتعالى هاي نقدقك ورمضان تافد لقيدة بشا بركيسين كجرنو كويك فايديست إن شاء الله لنا عوالبا ولا لها قالقا هو قصدينين انتم ولا شينين لسو وداكتي قرال بإيو صدر تمرك إن شاء الله وان أخرنا يا إيصبرا نجو حقلدنا إن شاء الله شايدن حق السكاها waxaan idinka codsanayaa marka koowaad ina hadii aad muuqaalkan ku soo gaaro like saartid sidoo kalena channelka ku soo biirtid subscribe iyo saartid wixii talanaha qaybta commentiga nagula wadaagtid insha Allah duulay ka dhigo waxa walaalkeen ku dheeraan waxay leedahay walaashin sida tan ay ku bilaabmaysaa qisadeedu waxay tiri assalaamu calaykum abaa tala ayaan rabaa please ila soo tali tala fiican waxaan ahay bay tiri hooyo guurkii hore ka burburay alxamdulillah caruur ayaa ii joogta laba ah waxaan xiriir la wadaagaa jacaylkeygii ugu horeeyay qofka kaliya aan noloshayda jeclaaday xiriir 2 sano ah aniga oo la wada ayaa 12 sano ka hor xanaaq na dhaxmaray dartiis baan u guursaday isaga u guursaday aabaha ciyaalkeyga ama ciyaalkeyga ama ninka ka dhalay ee kala tageen labada ciyaala ninkii way kala tageen markaa ma fahanteen halkan ku socono waxay tiri oo aan 10 sano wada nooleyn ninkan ay 10 sano la nooleed hadda wada nooleyn hadda isagu wax sheegaysa wiilkan ay la socotay markii hore isjeclaayeen waxay tiri hadda isagu waa xaasla caruur leh laakiin jacaylkiisa oo aniga waaye waxa jira wadan waxaan wada joognaa Europe waliba waxa jirin laba wadan oo daris ah ayaan joognaa hadaba waxa jira talada aan rabaa waxa waaye ma guursadaa ninkan aan jeclahay xitaa isagoo xaasle ah waan ogahay bay tiri inuu 4 ku filan yahay oo baahi ma jirto ma jeclaan lahayn inaan miniro noqdo laakiin xaalafka Ilaahay baa og ila soo tali hadaad oran lahayd gabadha ninkeeda u daa ninkaas waxaan aaminsanahay in aan noloshiisa aniga xaq u leeyahay oo 2 sano wax walba horumar ah la garab taagnaa isagoo aan sheeko wadaag nahay waxay tiri dangaladayda mustaqbalka nin aan soo diyaariyay aan soo dhisay bay heshay wayna ogtahay inuu aniga jeclaa way ogtahay bay tiri inuu aniga jeclaa iyaduna carafkiisa ay noqotay markaas waxaan rabaa walaal macaan inaad ila soo talisid maxaan yeelaa maxaan sameeyay ninka ma guursadaa mise bal ila soo taliya walaalaha qaaliga ah qisadeennay ama ila talida walaashayna intaas ayay ku eg tahay marka waxa weeyaan waxa meesha yaala waxa weeyaan maxaan aan ka oran lahayd weeyaan najax markaas
anigu kulley waxaan dhihi lahaa kulley markaan yacni anigu nafsadeyda ka hadlo iyadana aan ku bedelo booska gabadhaas oo kale ka horta walaali macaaney wax kastaba waa calaf isku meydaan lahayn calaf baa adigana halkaa ku mariyey weliba 10 sano ayaad linkiin la noolayd maantana calaf ayaa idin kala gaxeeyey inankiina maanta reer kale ayuu leeyahay caruur dhaqdaa gabadh qabaa qurba ayaa la joogaa weliba qurba nacas yurub waa ogtahay noloshu adag tahay gabadhaas maanta haddii aad ninkaas aad ku gashid aad la guursatid anigu waxaan ka cabsanayaa inuu guurkaas ama gurigaas reerka dhisan inuu bartaa ku baaba'o waa sababtoo ah beed waa la dhisaa guri waa la dhisaa lama dumiyo ma fahanteen markaan waxaan dhihi lahaa koo horta taas anigu ma ka soo horjeedeen reerkaas isku dhacaan haddii aan dhihi lahaa guurso talabaadna waxaan odhan lahaa oo dhinaca kale markaynu ka eegno ah na shalay adaa ka tegay weliba reerka ka ninkii maartay intaad markaad leeda noloshiisi baan soo dhisay khilaafiro dhexdiina yimi ayaad magaranaysa uga tagtay goyn kasta calaf isku lahayn ilaahay ba aanu qoray subxaanahu wa ta'aala yani inaad iscalafataan isaga magaranaysa ad marka ooridiisa noqotid laakiin maanta ma ogin inaad calfa doontid in kale laakiin anu waxaan ku dhihi lahaa walaalo ninkaas gabadhaysa hala soo tashado markuu la soo tashado ha ku yiraahdo ogahay inaanay gabar yeelin ningeedu magaranaysa la guursado laakiin meesha sababta ay ku jirto ayaan ku sheegay waxa weeyaan reerkaas inuu burburma laana hadii halka ka maqal lahayd oo nolosha aad burburin lahayd oo magaranaysa noloshaas burbur lahayd wax ka wanaagsan waxa la isla ogyahay marka ninka haduu ku jecel yahay adiguna aad jeceshahay gabadhana ay ogeyd ninka reerkiisa ka baabin ninkaas hadii gabadhiisa oo gashahay inuu guursado ha guursado حتى هذه المقالات اسكتجنو اسكتقنو غيرك كلنا هنود كله اسكتقناضو وهذا أنا تلاذي إذا أتهويان هدي قبل اسكتيدنا ونكاس ما ركتي وكتعلي هنا وكبور هذا قبل سويت إلا وانكو كورسنايا وغيرك سميشا كبر برايو أنا وحن كورا لها ولا لي معاني إلهي بفحن إلهي برد شعل إلهي سبحانه وتعالى مالك لو كون يكسن نك لو في عن وحن كور بارك ومقرنا سامحين حيتلك ودقض فرحة دي شعل بقت كيشد إلهي مالك لها كاسية غيرك فراها كقط اسكده ninkan iska ilow shalay baad kaga tagtay maanta inta duur rabaqanay walaalay barta kullu ma kugu dhilaa iska daa ma fahanti haduu isagu ku jecel yahay xitaa uu kugu radano ilaa bilaa uu ku guursanaya halka ha burburo waxa sadoo ku dhaana ka yeelin adiga wararkaaga maanta wuu burburay waxba kamaysid awlaad bilaa aabahay faa'iido ma laha qurbaa la jooga caruur wata maalin walba dumarka laga qaadayo Soomaalina halka dhigay maanta waxa kala daadsanaanta iyo si kala filqsan yihiin marka wax wanaagsan maaha intaan ka shaqaysan lahayd walaal macaan wax ku dhiilaha adduunkaaga iska ceesh faraha ka qaad reerkaas frantish al wad helisa walaal macaan insha Allah saacad qalab idinkuna walaal la soo taliya bal idinkuna qaybta committee-ga bal noo reeba wixii raydiina ah insha Allah videoga dad dhamaysto barta soo gaarin waxaan ku leeyahay like share committee subscribe insha Allah كم بلايل كفرتها واحد يجي تيجي سيداي في أمان الله.